abuukar cawaale oo u ololeeya dabarjarka maandooriyaha qaadka ayaa maalinimadii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe isagoona isla maanta ololihiisa la dagaalanka qaadka ka bilaabay masaajidada magaalada Garowe. halkan waa masaajidka Al-Huda oo kamid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Garowe. waxa uu wacyigelin u sameeyay dadkii salaada jimcaha ku tukanayay maanta isagoona dadka tusay dhibaatada uu qaadku leeyahay. laakiin inta aynu maanta halkan fadhino salaada u taaganahay sawir baan rabaa inaan idin tuso oo qulubtiina dhexdiina idinka tuso qof walba insaadkiisa inaan ka tuso haddaad indhaha isku qabataan oo aad qiyaastaan maanta intaan salaada u taaganahay Garowe dhexdeeda ilmo yar oo saqiira oo reer Garowe ooyay waxa laga yaabaa inay gabar 6 bilood jirto taa wiil yar oo dhowr bilood jira inuu yahay 1 sano jir inuu 2 sano jir inuu yahay hal ma aha laba ma aha waxa laga yaabaa 100 caruur ay yihiin Garowe dhexdeeda haddeer intaan hadlayno hooyaa sasabayso saas hadba masaasad biyo ku jiraan siinaysa ilmahaas cudurna ma hayo xumadna ma hayso dhibaato kalena ma hayso ilmahaas waxa uu la ooyayaa waxa la hayaa hadii oo intaas la turjumo wuxuu leeyahay ilmahaasi tol beelaya islaama wariyaa Soomaaliya wariyaa reer Garowe wariyaa war aabahay haduu waashay oo caanahaygii Kenya u dirayo war idinku iga qabta ilmahaas xaq wuxuu u leeyahay inuu quraacdo inuu casheeyo qaadku waa caqabad weyn aabahaas qadinaya oo maqan oo mahsan oo caruurtiisa saddex qada lacagti ku diraya waxay soo reexamarku waxay dhahaan ninkii waalan walaalkiisa u miir qaba annaga ayaana la ka rabaa inaan xal lan nimaado dhinaca kale hadaad fiirisaan hooya ooyeysa sabraysa ma aragna annagu xijaabka hoostiisa ilmadu dareeraysa uma jeedno aradkeedii baa laga yaabaa cilaaj inuu uga jiro lugta ka teenad uga xiran tahay odageedii baa laga yaabaa inuu 3 habeen soo hoyeen caruurtii meel ay wax uga keenta laada waa dayaansan tahay waa dareenkaas waa inaan ka jawaabnaa bulsho ahaan. sidoo kale abuukar ayaa shacabkii masaajidka joogay u sheegay in lacagaha qaadka dawladda Kenya ay ku faafiso diinta Kristanka. waxaan soo xiganayaa nin la yiraahdo Paul Kagame waa afhayeenka beeraleyda qaadka ee Kenya waa xilligii ololuhu uu ka socday UK ninkaasi wuxuu yiri asagoo Ingiriis la hadlay anigu goobtaan fadhiyaa qaadka waa la joojinayaa markii la yiri Kenya ergey soo dirsatay ergadaas oo hogaaminayay wuxuu yiri Ingiriisow ogow lacagta aan qaadka uga qaadano Soomaalida oo aan ku gadano ma aha only inaan caruurta biil ku siisano iyo school fees inaan ku bixino iyo inaan ku noolahay kaliya ma aha Ingiriisku waa inuu ogaadaa waxaan ka midnahay Commonwealth waxaan nahay dad Christian ah lacagta aan halkan ka helno Soomaalida ka helno boqolkiiba 10 waxaan ku dhisnaa kaniisado waxaan ku daawacnaa Bible waxaan ku fidinaa diinta Masiixiga including East Africa oo dhan man ku gaarsiinaa kalmadda uu ninkaasi maalinkaas sheegay mar walba waa soo xigtaa sababtoo ah halkaas waxa iga baxay rag badan oo muqayyiniin oo Garowe jooga oo diinta Masiixiga fidiyay inay jiraan lacagtooda ku fidiyay oo aan ogeyn maanta waxaan rabaa inaad iga gaarsiisaan farintaas qaada waa idinku qaan ninka qaadka cunow ogow haddaadan hore u ogeyn maanta ogow xoolaha caruurtaada ka qadisay xoolaha aad naftaada u diiday xoolaha aad deyn iyo deeq iyo si walba ku keentay waxa loo isticmaalaa in lagu fidiyo diinta Masiixiga waxa lagu dhisaa kaniisado waxa lagu daawacaa Bible haraf haddaadan u ogeyn Ilaahay baa ka caafinaya laakiin maanta waad ogtahay idinkana farintaas qaanbay ugu tahay gaarsiin hal laga digtoonaado. maalmaha soo socda waxa ololaha la dagaalanka qaadka ee qaadiid looga wacyigelin doonaa ardayda wax ka barata iskuulaadka iyo jaamacadaha magaalada Garowe. Samir Mahmoud Ali, Somali Cable, magaalada Garowe.